waa jawharadda iyo jihada dalxiiska ee Koonfur Bari Aasiya. Waa meel caan ku ah ixtiraamka kala duwanaan caalamkan qof walba nooc u abuuran. Waa meel dadkiisa ay furfurnaanta ku caanbaxeen, caan ku yihiin kuna soo jiitaan dalxiisayaal badan oo caalamka ka kala imaanaya. Sidoo kale waxay caan ku yihiin jasiirado badan oo tiro ahaan gaaraya 878 jasiiradood. Waxa cajiibka ah ee ku saabsan jasiiradahan waa lama degaan oo badanaa dadku ma degaan. Kuwa badanaa loo dalxiisana waxaa ka mid ah Langkawi. Wax yar intaan ku maqlay magaca Langkawi, hadda ayaan soo xasuustay. Dhalinyarada Soomaalida ee ku sugan dalka Malaysia ee youtuberada ah ee uu ka mid yahay Asad Xaajiyow, IMK, Caida oo badanaa u dalxiisi jiray jasiiradan. Sidaas ayaan ku baranay. Magacaygu waa Yacquub Xasan. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Malaysia waa wadan ku yaala Koonfur Bari qaaradda Aasiya. Baaxadda dhulkiisa dalkan wuxuu gaarayaa wax ka badan 329,847 oo kiiloomitir isku wareeg ah. Wadanka wuxuu u kala qaybsan yahay laba qaybood oo kala duwan. Malaysia qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa West Malaysia oo u dhigan 40% guud ahaan badka dhulka ee dalka, waana qaybta dadka ugu badan ay degan yihiin, waxaana la dhahaa waxaa ku nool 80% dadka Malaysia. Iyo qaybta ugu weyn dalka waxaana loo yaqaanaa East Malaysia, waana qaybta leh jasiiradda ugu dadka yar. Sidoo kale waa jasiiradda saddexaad ee ugu weyn caalamka. Halkan dadka ku nool ma ahan dad tiro badan, waxay leedahay kheyraad dabiici ah, waxaana ka mid ah kaydka saliidda iyo gaaska. Qaybta galbeedka waxay xuduud bad iyo dhul la leedahay wadanka Thailand iyo xuduud badeed la leedahay Singapore, Vietnam iyo Indonesia. Qaybta bari waxay xiriir bad iyo dhul la wadaagtaa Brunei iyo Indonesia. Sidoo kale waxay xuduud bad la wadaagtaa Philippines iyo Vietnam. Kuala Lumpur waa caasimadda dalka, sidoo kale waa magaalada ugu weyn dalka, waana halka ay ku taalo xarunta sharci dejinta ee dowladda federaalka. Putrajaya waa xarunta maamulka iyo waaxda garsoorka ee dowladda federaalka. Dadka ku nool wadankan waa 33 milyan oo qof. Waa dalka 43aad ee ugu dadka badan caalamka. Dalkan asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa boqortooyada Malayga, taas oo noqotay markii laga soo bilaabo qarnigii 18aad mid hoos tagta ama hoos timaada boqortooyada Ingiriiska. Intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida, wadankan waxaa qabsaday Japan. 3 sano kadib way iskaga baxeen, haddana waxaa dib u qabsaday Ingiriiska. Dadaalo waqti badan qaatay kadib, Malaysia waxay madax-bannaanideeda heshay 1957. Sanadkii 1965 waxay Singapore dayrisay inay kasii mid ahaato Malaysia, waxayna sidaas uga go'day ka mid ahaanshaha dalka Malaysia. Wadankan waxaa degan dad qowmiyado kala duwan iyo sidoo kale dhaqamo kala duwan leh, waxaana ugu badan dadka loo yaqaano Malayga oo ah kala bar dadka wadanka degan. Sidoo kale waxay u badan yihiin Muslimiin. Bulshada labaad ee ugu dadka badan waa Shiineeska, waxayna ku kala duwan yihiin xagga diinta, lahjadda iyo caado dhaqameedka. Inta badan bulshada Shiineeska waxay ku dhaqmaan diinta Buddhism-ka iyo Kiristaanka. Bulshada Hindida ah waxay qayb muhiim ah uga jiraan dadka ku dhaqan Malaysia. Hindida badanaa waxay ku dhaqmaan diimaha kala ah Hinduuska, Islaamka iyo Kiristaanka. Waxaana ugu dambeeya waa dadka asliga ah ee ayaga laftigooda kala duwan dhaqan ahaan iyo diin ahaanba, waxayna degan yihiin baadiyaha dhulka. Luqadda rasmiga ah ee dalka waa luqadda Malayga, waana luqadda lagu isticmaalo goobaha waxbarashada, dowladda iyo wada xiriirka caadiga ah. Luqadda Ingiliishka waa luqadda labaad, waxaana si caadi loogu isticmaalaa goobaha ganacsiga, waxbarashada iyo maamulka. Diinta rasmiga ah ee dalku aqoonsan yahay waa diinta Islaamka. Sidoo kale dastuurka wuxuu damaanad qaadayaa inuu ilaalinayo dadka diimaha kala haysta sida Hinduuska, Buudhiiska iyo Kiristaanka. Malaysia waxay raacdaa nidaamka baarlamaaniga ah ee kasoo jeeda boqortooyada Ingiriiska. Xukunkana wuxuu u dhisan yahay qaab boqortooyo iyo ra'iisul wasaaraha oo xukuma xukuumadda. Baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay 2 aqal, aqalka wakiilada iyo aqalka guurtida. Nidaamka sharci ee dalka Malaysia wuxuu ku saleysan yahay waxa loo yaqaano sharci guud ama common law, kaas oo laga dhaxlay gumeystihii Ingiriiska. Sharciga waxaa ilaaliyo garsoorka. Tan iyo markii ay xornimada qaadatay, Malaysia waxay soo martay kobac dhaqaale oo cajiib ah. Taas waxay daliil u tahay kobaca dhaqaale ee ay samaysay iyo warshadaynta. Celceliska kobaca wax soo saarka ee ah 6.5% in ka badan 50 sano ayaa ka tarjumaysa dadaalka guusha Malaysia ay ka gaartay horumarinta dhaqaalaha. Waxaa kaloo jiro dhowr arrimood oo ka qayb qaatay kobaca dhaqaalaha Malaysia. Waxaa ka
mid ah warshadaynta. Maleeshiya waxay u ogolaatay inay ka gudubto dhaqaalaha beeraleyda una gudubto dhaqaalaha warshadaynta. Waddanka wuxuu ku tiirsan yahay kheyraadka dabiiciga ah sida timirta iyo injirka. Sidoo kale dhaqaalaha wuxuu ku tiirsan yahay ganacsiga, dalxiiska iyo caafimaadka.